ku soo dhawaada xigmado sare oo saameyn leh misna saaxiibtinimada ka hadlaya oo ku sifayn doona saaxiibtinimada san misna saxan ee aan saxar lahayn saaxiibayaal soo dhawaada aan soconno on xigmadaha saldhigooda booqannay doorashada saaxiibtinimo kuma jirta sharciyada nolosha laakiin waxay ku jirtaa deeq dareen isfahan loo maro nolosha iyo maareynteeda adduunkan qofna ma ahan qof ceeb ka saliim ah haddii aad qof kaga fogaato qalad uu sameeyey waxaad weligaa keli ku ahaanaysaa dunidan wax yar xugmi wax badan jeclow haddii aad si daacada u aaminta qof aamin ilaa xad wax kastoo ay natiijadu tahay ugu dambayntii waxaad helaysaa saaxiib aad u fiican ama cashir aad u fiican ha ka cabsan cadowga kuu soo bareeray oo ku soo weeraray laakiin iska ilaali in ka badan saaxiibka beenta ah ee habku siiya haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada yacni cidlada hadda ka cabso inay saaxiib kuu noqdaan dad xun saaxiibbada beenta ah waa sida harka oo kale had iyo jeer way kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto balse ma arkaysid saacadaha aad mugdiga ku jirtid marka aad hareerahaaga ka weyso hoos quman waxaad baartaa sababta aad u weysay saaxiib quman garaaci meel kasta oo sareer martaa waxay weysay joogitaan dheelitiran oo ay ka helaysay hawo sifaysan saaxiibtinimadu waa hawo saafi ah oo aan gambasho iyo dhaxan aanan kugu qabanaynin eela kaale wehel aad isku sawirtaan qadiyadaha noloshiina yeelo asxaab iyo saaxiib laakiin ha hilmaamin dadkii ku dhalay oo ku soo koriyey xasuusnow inay ku sugaysa adna inaad dad koriso tababarto heerna gaarsiiso xiriiri qaraabada xaqdhowr deriska xushmee dadka haddii aad doonayso inaad goyso ama aad jarto qof saaxiibkaa ah dhaawaca kaga tegin qof qalbigiisa ku siiyey kaama mudna inaad waran ku taagto ama inaad sabab u noqoto ilbiriqsi inuu murugoodo maxaa ka fiican in qof aad kala tagteen in xasuusiin ay ku harto isagoo kugu soo xasuusanaya wakhtigii fiicna aad isla soo qaadateen saaxiibtinimadu waa kayd aad ku raadin karta micno kasta oo nolosha kaaga dhunta waxaad ku baaran kartaa fariin kasta oo noloshaada aad kala kulanto wuxuu ku ahaanayaa wehel iyo la socod nolol iyo qurux tashi iyo barwaaqo dadka caqliga badan waxa ay leeyihiin asxaab badan cadowgooduna wuu yar yahay waayo saaxiib sanad baa lagu helaa cadowna hal maalin wanaagna waxaa leh qofkii alla siiya dabeecad wanaagsan wanaagga saaxiibadaada kuma sharxi kartid eraye iyo wax u dhigma laakiin waxaad ku sharxi kartaa xasuuso xambaarsan ficilo ka soo go'ay qalbiga deeq waxa ay nala garta nafta inoo dhow waxna kula darsata nolosha iyo cabirkeeda waxaad isla goynaysaan nolol aqoon xasilnaan iyo garasho waxaad isku barbaarinaysaan dadnimada iyo sifaynta caqliyo fara badan taana waxay u ahaatay saaxiibka wanaagsan dad badan ayaa raba inay kuula socdaan safarada noloshaada laakiin qofka kuu muhiimka ah waa kan mar kasta ku xasuusiya cabsida alleh xoogsatada maaraysa noloshooda waxay inooga sokeeyaan garta saaxiibtinimo ee ay dadyowga ay wada shaqeeyaan ay isku fahmaan taasna waxaan kaga midaysannahay sirta nolosha adag iyo dadnimo lagu garnaqo taasna waa xeelada safarada duruufeed ee nolosha waxay saaxiib u tahay cid kasta oo saaxiib ka dhigata waxay fariin lama filaana u dirtaa noolo kasta oo isku dhinac ah islana jaanqaada saaxiibtinimadu waa dhaqaaq kugu biiriya xilkasnimo iyo hanfurnaan waxaadna iskula jaanqaadi kartaan awoodo fikir dad badan ayaa ku soo mari doona noloshaada laakiin saaxiibbada dhabta ah waxay kaaga tegi doonaan xasuuso qurux badan oo ka duwan dhammaan xusuusihii dadka kale